السلام عليكم رمضان كريم هبين وناكسن ilaa maanta waxaan baraha bulshada ku arkay dad hooyooyinkood sawirradooda soo dhigaya oo ku soo qoraya maalinta hooyada adduunka. Waa yaab waana wax laga xishoodo. Hooyooyinkeen goormay yeesheen maalin la xuso oo keliya. Hooyooyinkeen wayna dhaleen, wayna koriyeen, wayna barbaariyeen. Quruxdaan leenahay iyagaa noo keenayna soo gaarsiiyey meesha martabada aan taaganahay iyo maanta wax kastoo aan nahay iyagaa naga dhigay. Ilaahay ka suko. Ilaahay laftiisa wuu sharfay wuu karaameeyey jannadana labadooda lugood ayuu dhigay oo wuxuu yiri jannadiina waxay ku jirtaa lugaha hooyadiin. Hadalka Ilaahay ee sida u sharafta badan iyo hooyooyinkeena sida u qiimaha badan ma waxaan ka doorbidnay gaalo intay shirtay kulan qabsatay deedna tiri 10 bisha May waa maalinta hooyada adduunka. Waa maalinta hooyada adduunka hal xuso ayaan hore ahayd waxaan ka qaylinayay oo lahaa 8 March maalinta haweenka adduunka ma ahan haweenkeenu way ka sharaf badan yihiin kuwa gaaladu tilmaameen oo way ka qiimo badan yihiin maalin kasta iyaga iskale. Maantana arrinkii waa la iskala tago hooyada la maraya. War hooyooyinkeen maalin kale way ka qiimo badan yihiin maalin kasta iyaga leh maalin kasta iyaga duco naga mudan sharaf naga mudan ciise naga mudan inaan weyneyno qurxino oo u dadaalno oo ka ducaysano inta hooyinkood nooshahay ayaan kula talinaya. Waana wax laga xumaado intaad ama sawir ama muuqaal iska soo duubto inaad tiraahdo maalinta hooyada adduunka waxaan u dabaaldegayaa maalinta hooyada adduunka. runtii caqliyadda saliimka kuma wanaagsan. Marka walaalahayga Soomaali Maxamed aniga gaalo iyo Carab midna la hadli maayo idinka dad iyo xiga waxaan idinku boorinayaa oo aad idinkala dardaarmaya waxyaabaha sidan u foosho xun inaynan weyneyn maalmaha sidan oo kale oo liiditaan ku jiro in aynaan weyneyn. Hooyooyinkeen iyaga maalin kasta iskale waalidkeen waaye wayna soo koriyeen sharafta iyo cizigaas iyaga iskale iyaga mutaystay inaan weyneyno maalin kasta. Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala wuu weyneeyay oo kor buu geeyay oo labadooda lugood ayuu jannada aan u ordeyno oo dhan dhigay. Marka aan hadalka Ilaahay weyneyno hooyooyinkeena maalin kasta iyaga iskale wayna ka qiimo badan yihiin maalin iyo labo in la xuso. Waa mahadsantiin. Salaamu calaykum.